Yuusuf Cadaani waxaa maanta garoonka Kismaayo ku soo dhaweynayna ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxa weeyaan muddo 3 maalmood aan sugaynay madaxda wuxuu kaaga dugan yahay la soo dhaweyn jiray muddo 3 maalmood aan sugaynay ra'iisul wasaaraha aan u taagneyn soo dhaweyntiisa ما شاء الله maanta aan ku faraxsanahay maadaama ra'iisul wasaarihii Soomaaliya aan ku soo dhaweynay magaalada Kismaayo mudan ra'iisul wasaare waxaan kugu soo dhaweynaynaa halku dhigaaga ah Kismaayo ma uu kala furan kaluun shiilan kabiis duwan iyo karuur geel magacayga waa Qaali Cali Cadow waxaa maanta banaanka u taaganahay garoonka oo 3 maalin iyo 3 habeen aan diyaar galo ugu jirnay ra'iisul wasaaraheena Xasan Cali Khayre waxaan leenahay ra'iisul wasaare soo dhawow waxaan ku soo dhaweynaynaa halku dhigiisii ahay kal furan kaluun shiilan iyo kimis duban iyo karuur geel waxaan leenahay ra'iisul wasaare soo dhawow kal iyo laaban ku soo dhaweynaynaa hadaana shacabweynaha Jubbaland سلام رئيس الوزراء وسلام مدير رئيس الوزراء وحسن أشرف على ديار وطبيا كترسن دولة قلوات جبلان مدير كسانوو مدير رئيس الوزراء waxaan ugu faraxsanahay inaan soo dhaweyn ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo booqasho shaqo loogu yimid joogina doona dhowrka cisho soo socota waxaan leenahay mudane ra'iisul wasaare ku soo dhawow magaalada Kismaayo xarunta dowlad goboleedka Jubbaland waxaan isleeyahay waa marti kuma tihiin waa deegaankaagii waa timid waa dalkaagii أقول لك هذه الوزارة واحد أدبا نوفر حسنا أنا اعتماده هدان كفتن كدر سوا دولة فضل الكع ودولة الصومالية واستيديا ودنيا الصومالية كل مسؤول ككع مركعين سعود كينو يراده سقلي إنه يراته قعنتي إنه يراته عاد كينو كو يراده استيديا وحياة عريس كتير توي تامرك عربنا أنا نديش إنه إن مرتين عد واحد ده كينا يتاي مسؤولية دي سارنا يتاي دول كقطان يتاي
ku soo dhowaada waxaan rajaynayaa insha Allah inaan wixii wada hadal iyo wixii shaqada soo baxday la isugu yimaado la kala hadli doono aad baan idinku soo dhaweynaynaa soo dhow ra'iisul wasaare madaxweyne Axmedoobe iyo madaxweyne ku-xigeenadiisa iyo dhammaan golihiisa wasiirada ciidamada reer Jubbaland xildhibaanada iyo dhammaan shacabka reer Jubbaland gaar ahaan shacabka reer Kismaayo aan aaminsanahay ilaa maanta oo dhan inay noo taagnaayeen si ay noo soo dhaweeyaan maalmihii ugu dambeeyayna ka shaqeynayay inay soo dhaweeyaan wafdiga aniga oo ra'iisul wasaare aan hogaaminayo ay qayb ka yihiin wasiirro badan oo ka mid ah golaha wasiirada iyo taliyaasha ciidamada iyo xildhibaano kale oo iyaguna ka socda golaha shacabka waxaan idinkaga mahad celinaynaa sida diiran oo aad noo soo dhaweyseen waxaa kaloo halkan ka muuqata farxad iyo rayn waxaan rajaynayaa mudane madaxweyne maalmaha halka aan joogno in aan ka wada arisan doono sidaan u dardar gelin lahayn wada shaqaynta ka dhaxaysa dawlad goboleedka Jubbaland iyo dawladda federaalka sidoo kale waxaa wasiirada ila socda iyaguna ay u yimaadeen inay la qabtaan shaqooyin kala duwan wasiirada dhigooda ah waxaa kaloo ila socda taliyaasha ciidamada oo iyaguna sidaas oo kale halkan u yimid inay shaqo qaran ka qabtaan waxaan aad ugu faraxsanahay soo dhaweynta waxaan aad ugu faraxsanahay maalmahan idinla joogi doono wixii shaqo iyo hadalna way noo dambeeyaan aad u mahadsantahay madaxweyne adiga iyo madaxda kale ee Jubbaland waa mahadsantihiin waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inuu nagala soo qayb galo booqashada lagu yimaado ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka xasan cali khayre iyo wafdiga hogaaminayo oo ay la socdaan taliyayaasha ciidamada qalabka sida Soomaaliya taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed taliyaha booliiska mudane ra'iisul wasaare iyo wasiirada saaxiibada hoostaagan ku soo dhawow magaalada Kismaayo kaafiso iyo shacabkeeda madaxweyne Axmed waa mahadsan tahay dhammaan adiga iyo madaxda kale ee reer Jubbaland waa idin mahad celinayaa soo dhaweynta diiran aniga iyo wafdigayga oo ay ugu horeeyaan wasiirada iyo taliyayaasha ciidamada Soomaaliyeed laakiin si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa shacabka reer Kismaayo shacabka reer Kismaayo waa u mahad celinayaa guud ahaanna shacabka reer Jubbaland waa u mahad celinayaa halkan waxaa ka muuqata farxad iyo rayn waa ogahay inaad qoraxda taagnaydeen waa ogahay inaad na sugayseen laakiin waxaan rabaa sida aad noo sugayseen inaan idinkugu sheego sidaas iyo si ka badan inaan raalli idinkaga nahay aniga iyo wafdigaygu waxaana aad idinkaga mahad celinayaa qoraxda aad taagnaydeen waxaan leeyahay ilaahay ha idin dhib yareeyo laakiin soo dhaweynta waa idinka qabnaa waxaan rabaa keliya ugu dambayntii annagoo isarki doonna intaan magaalada joogno kalkii hore nimid Kismaayo waa u sheegay madaxweynaha in magac cusub loo bixiyo qoraalkiina ma arag
anigu ayaantii waxaan idhi madaxweynuhu kismaayo ugu imow maxaan idhi kal furan kibis duban kalluun shiilan haddana kaafisaa laydinkugu daray waana oggolahay waa mahadsantihiin